ka qayb gal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaallo cusub fadlan subscriber noqo. السلام عليكم كلنتي wanaagsan ikhyaaray waa mar kale iyo ha noolaato aniguna waa Yaan Xuseen Cabdi caawa barnaamijka waxaan uga hadli doonaa arrin cusub oo la xiriirta hawada Soomaaliya sida laga yaabo dad badan oo Soomaaliyeed inay la socdaan waxa jiray duulaan toos ah oo lagu hayo qaranka Soomaaliyeed iyadoo horey muran loo galiyay badda Soomaaliya isla markaana la googooyay dhulkii Soomaaliyeed ayaa hadda waxa jira duulaan cusub oo lagu hayo hawada Soomaaliya oo laga yaabo dhawaan in loo qaybiyo shanta wadan ee dariska nahay kuwaasi oo la sheegayo inay doonayaan in hawada Soomaaliya lagu wareejiyo wadamada Kenya, Ethiopia, Yemen, Seychelles oo la doonayo in la hoosgeeyo hawada Soomaaliya iyo sidoo kale wadanka Yemen. Arrintaasi oo arrin cusub oo dhiladeeda leh ayaan isku dayaynaa inaan ka wareysano khabiir arrimahaasi aad u yaqaano kana soo shaqeeya aviationka Soomaaliya muddo dheerna kamid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee aqoon-yahanka ahaa ee loo tababaray hawada Soomaaliya waa Maxamed Abuukar Nuur oo hadda safar ku jooga magaalada London isla markaana diyaar u ah inuu ka hadlo caqabada halista ah ee soo wajahday hawada Soomaaliya. Maxamed ku soo dhawow ha noolaato. waa idin mahadcelinaya barnaamijkan ha noolaato. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. caaw waxaan ku hadlayaa waa codkayga ma aha waa codka aviationka iyo codka shaqaalaha aviationka Soomaaliyeed kaasoo iga codsaday ama i weydiistay inaan qaalintan u gaarsiiyo bulshada ummadda Soomaaliyeed. haddii la yiraahdo macnaha maanta dhulka Soomaaliya cad ku soo duulay waa la qabsaday. Soomaalidu waa dad geesiyaal waa dad u naxa dalkooda waxa laga soo guri Soomaaliyeed kasta waa inuu macnaha gurmad ama sahiila ay ka soo baxdo. arrinta caawa dul keentay macnaha ha noolaato waa qayla dhaan waa dhiilo waa arrin muruga leh waayo aviationka Soomaaliyeed ayaa wuxuu ku dhow yahay ama qarka u saaran yahay inuu gacanta Soomaaliya ka baxo. Soomaaliya wuxuu ku amaah jirtay libax wuxuu lahaa alam tara balse soo dhaaf. waxay u kulti ha noolaato waxay u kalifa caawinaan soo hor istaago. waxa ka guuxaya qof kastoo aviation oo qaarkood codkooda aysan bixin karin ayagoo ku weyn kara shaqadooda qaarkood aysan codkooda soo bandhigi karin ayuu ku weyn kara naftooda qaarkoodna arrimo jira darteed aysan u hadli karin. waxa caawa fis oo intaas 23 sano gacanta ku haysay aviationka Soomaalida caawa waxay miiska soo saareen inuu aviationka Soomaalida wajaho 3 arrimood midkood in hawada wadanka oo dhan la wada xiro oo shan ruudka waayo aviationka Soomaaliya inta badda iyo inta dhulka waxa afar jibaar weyn inta badda.